dhegaystayaal waa qayb kale oo ka mid ah taxanaha sheekooyinka qur-aanka. maantana waa sheekadii cusayr. maalin maalmaha ka mida ayuu dhex galay beertii uu lahaa. waxay ahayd beer uu cagaarku kor iyo hoosba isqabsaday, beer ay geedaheedu wada harac noqdeenoo aan kulaylka cadceeddu ka soo gudbi karin, beer si xoog la u mira bixisay oo ay noocyada shimbiruhu ka dhexaysayaan. saacada intii ah ayuu quruxdaas xaddhaafka ah isha la raacayey kuna raaxaysanayay. dabadeed midho canab iyo timir u badan intuu beertii ka gurtay oo laba kolay ka buuxsaday, xoogaa kibis ahna meel ku guntaday, ayuu dameerkiisii fuulay oo xagga iyo aqalkii uu degganaa afka saaray. sirta abuurka iyo yaababka jiritaanka siduu uga fakarayey ayuu habaabay oo tubtii hagaagsanayd ee uu qaadi lahaa ka ilduufay. ambooyinkii ayaa isaga darmaday, bari iyo galbeedna wuu kala garan waayey. isaga oo xaaladdaas ku jira ayuu ku soo baxay magaalo burburtay oo digada noqotay, magaalo la cidleeyey oo baaba xumi ka muuqdo, meydka iyo lafaha dadkuna ay meel walba waran yihiin. dameerkii ayuu ka degey, labadii kolayna intuu dhulka ka soo dhigay ayuu dhinaciisa dhigtay. dameerkiisii intuu meel ku xirtay ayuu derbi ku tiirsaday si uu u soo ceshado xooggii iyo awooddii fakarkiisa. dabadeedna meeshiibaa u macaanaatay, wuxuuna ku raaxaystay neecawdii udgoonayd ee wejiga ka salaaxaysay. wuxuu si qoto dheer uga fakeray meydka hortiisa daadsan iyo sida inta naf loo geliyo mar dambe loo soo bixin doono, sida oogada baaba'day ee dhulka iyo carrada ku milantay la isugu soo celin doono ee berri loo soo saari doono. fakarka caynkaasa siduu ugu maqnaa ayuu indhaha isku qabsaday, luguhayna dhulka ku fidsaday. hurdo dheer ayuu galay, hurdo aad mooddo inuu dadka qabuuraha kaga mid noqday. 100 sano ayaa maalintaa ka soo wareegtay. carruuraha kuwii ahaa ayaa gaboobay, uun badanina ciidda ayay hoos mareen. dadyow fara leh ayaa arlada dusheeda ka tirtirmay, qalcado door ahayna dukun daakun ayay ku dambeeyeen. intaasna cusayr halkiisii buu gorafsanaa, isaga oo ah oogo aan ruux ku jirin, lafa kala daatay iyo xubno burbursan oo cadcad haysta aan lahayn. dabadeed waxaa la gaaray wakhtigii daboolka laga qaadi lahaa xikmaddii uu eebbe weyne ka lahaa sheekada cusayr. waxaa la gaaray wakhtigii uu dadka ku kala saari lahaa arrin ay muddaba ku wareereenoo inay rumaystaani ay ku adkaatay. lafihiisii baaba'ay ayuu rabbi soo ururiyey oo dib isugu keenay, dabadeedna ruuxiisi ku afuufay. qof dhan oo aan kala dhantaallayn ayaa mar qura lugihiisa isku taagay. mase waa cusayroo aad mooddo inuu hadda hurdadii ka toosay oo dameerkiisii daydayanaya, cuntadiisii iyo cabbitaankiisiina agtiisa ka goobanaya. malag rabbi soo diray ayaa markaa u yimid oo ku yidhi, imisaad u malaynaysaa inaad cusayrow halkan jiiftay? isaga oo aan wax badan ka fakerin ayuu ku jawaabay, maalin ama maalin gelinkeed. malaggii baa markaa yidhi, maye 100 sano ayaad meesha tan hurudday oo shuux iyo kararba uu roobkii kugu dul gabdhamayey, dabayluhuna kolba dhinac kuu dhaafayeen. sidaasoo ay tahayna cuntadaadii waa sideedii oo waxba iskama beddelin, biyahaagiina ma doorsoomin. midda kale bal eeg dameerkaaga oo haatan bakti ah, lafihiisana ay midiba meel taal, sida uu eebbe isugu keeni doono ee uu nafta u gelin doono una noolayn doono. wuxuu rabbi sidaa u yeelayaa arrimaha ku saabsan soo bixinta uunka iyo maalinta qiyaamaha inaad si kama dambaysa adigu bal horta aad u yaqiinsato, dadkana lagaaga dhigo astaan ay mugdiga shakiga kaga baxaan, iimaankuna uu ku galo. cusayr baa kolkaa hareerihiisa milicsaday, mase waa dameerkiisii oo ay ku idil yihiin dhammaan astaamihii uu lahaa ee uu ku yaqiinnay. waa dameerkiisii oo afartiisii addin ku taagan, noloshuna ay ku weyn tahay. markaas buu qiray inuu og yahay rabbi inuu wax walba awood u leh. dameerkiisii intuu fuulay ayuu raadsaday waddadii uu aqalkiisa u qaadi lahaa. wuxuu arkay dhulkii iyo guryihii oo isbeddelay oo siduu ku aqoon jiray iyo si u dhow toona aan ahayn. waxyaalihii uu soo maray inuu dib u xusuusto ayuu isku dayey. wuxuu u ekaa sidii nin soo garwaaqsanaya riyo uu waayo hore ku riyooday dhacdooyinkii ku jiray. wuxuu wax bidhaansadaba ugu dambaystii ayuu aqalkiisii soo dul joogsaday, mase waxaa joogta habar gabowday oo tabartii ku daba yar tahay, dhabarkiina soo gotay.
ha jilicsanaatee weli naf baa ku jirta oo waa indhala adahay. waxay ahayd gabar addoon u ahayd oo waagii ugu dambaysay dhallinyaranimo iyo quruxba uu ku ogaa. wuxuu ku yidhi, kani aqalkii Cusayr ma yahay? waxay ku jawaabtay, haa. dabadeedna hadalkii baa ku xirmay, waxaana soo dhaaftay ilmo badan oo ay coshan weyday. waxay tidhi, Cusayr waa tegey, dadkiina way iska iloobeen, muddo dheerna maanta ka horow ma arag cid isweydiinaysa amaba magaciisa soo qaadaysa. wuxuu yidhi, anigu Cusayr baanahay, 100 sano ayuu Eebbe imootanaysiiyey, haatanna isaga ayaa ifka ii soo bixiyey oo nolosha igu soo celiyey. habartii ayaa kolkaa argagaxday oo markii hore hadalkiisii rumaysan weyday, wax yar kadibna ku tidhi, Cusayr wuxuu ahaan jiray nin suuban oo ducadiisa la aqbalo. wax walba oo Rabbi ka doono wuu ka heli jiray. ruux xanuunsan hadduu caafimaad uga baryana wuu ladnaysiin jiray. haddaba adigu haddaad Cusayr tahay, Eebbe iiga bari inuu caafimaad isiiyo oo araggaygii uu ii soo celiyo. markaas buu Eebbe u baryey, dabadeedna si degdega ayay u caafimaaday oo araggeediina ugu soo noqday. labadiisii gacnood iyo labadiisii lugood ayay dhunkasho ku boobtay. isla markiiba waxay ku oroday reer Israa'iil oo ay ku jiraan kuwa uu dhalay iyo kuwa uu awoowo u yahay oo 80 jiro iyo 50 jiro miiran wada ah. waxaa kale oo ka mid ahaa qaar ay isku da'ahaayeen oo haatan gabowgii uu jilciyey, fadhigana ka kacela. intay qaylo kula dhexdhacday ayay tidhi, ninkii Cusayr ahaa ee 100 sano ka hor ay idinku dambaysay ayuu Rabbi dib u soo nooleeyey, isaga oo qurux iyo caafimaadba loo dhammeeyey, dhallinyarana ah. wax yar kadibba waxaa la soo joogsaday Cusayr oo si wacan oo wanaagsan u taxaashaya, wax ka maqan iyo wax lagu saluugana aan lahayn. way garan waayeen inuu been u sheegayana way u maleeyeen. ha yeeshee waxay go'aansadeen inay ka salgaaraanoo waxa uu sheeganayo ay dhab ugu kuurgalaan. wiilashiisa midkood ayaa kolkaa yidhi, garabka korkiisa ayuu aabbahay ku lahaan jiray bar lagu garto oo dadka kale lagaga sooci jiray. wuxuu yidhi, waa runtaa, anigana bartaasi way igu taal. maradii uu huwanaa markii ay garabkiisa ka faydeenna waxay ku arkeen astaantii ay carruurtiisu ku taqiin, kuwii uu awoowaha u ahaana ay ku maqli jireen. intaas ugama ay hadhine waxay go'aansadeen inay si buuxda shakiga isaga saaraanoo ay arrintan la yaab kale si fiican uga baarandegaan. oday waayeelah oo ku jiray ayaa yidhi, waxaannu sheeko ku maqallay tan iyo waagii uu boqor Bukhtanasar ku soo duulay Baytulmaqdis ee kitaabka Towreedda uu gubay, in koox yar oo Cusayr ku jiray mooyee cid kitaabkaa xafidsanay aanay ifka ku harin. haddaba haddii aad Cusayr tahay, bal noo akhri wixii aad kitaabkaas ka qaybsan tahay. markaas buu u akhriyey, isaga oo aan aayad gafin, qayb ka tegin, erayna ka dhaafin. markaas bay gacan qaadeen iyaga oo rumaystay, welibana u hambalyeynaya. ha yeeshee waxay ahaayeen duul nasiib daran oo dhacdadaas haba yaraatee aan wax iimaan ah ka kororsan. waxayba ka qaadeen gaalnimo hor leh. Cusayrna wiilkii Eebbe inuu yahay ayay ku sheegeen. dhegaystayaal, barnaamijkeennii ku saabsanaa sheekadii Cusayr oo qayb ka ah taxanaha sheekooyinka qur-aanku maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe hadduu Eebbe